Robotku wuxuu dhammaystiray hawlgalkii xameetida isagoo leh 100% guul. Ilaa hadda, robotsiyada AI waxaa loo yaqaanay inay caawiyaan bini'aadamka iyagoo u adeegaya cunto, nadiifinta guriga dhexdiisa ama ka caawinta hawl maalmeedka. Si kastaba ha noqotee, tijaabin joogto ah iyo horumarin, had iyo jeer waxaa la filayay in AI ay la wareegi karto adduunka. Taasi mustaqbalka dhow waxay awoodi doontaa inay samayso wax kasta oo aadanuhu awoodin oo aan awoodin. Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu weyn ee jihada ayaa lagu gaaray robot AI ah, oo dhowaan si guul leh u sameeyey qaliin xameeti ah, oo leh 100% heerarka guusha. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Beddelidda mustaqbalka daawada weligeed. Robot ayaa si xirfad leh u kala soocay kaadihaysta xameetida beerka doofaarka dhintay. Hadda khubaradu waxay rajaynayaan in qaliinada otomaatiga ah loo isticmaali karo habka daaweynta bini'aadamka 10 sano ee soo socda. Mustaqbalku waa dhalaalaya oo si quman u dhow, ayuu yiri Ferdinando Rodriguez y Baena, oo ah brofesor ku takhasusay robotics medical ee Imperial College London, New Scientist. Hawlgalka takhtarka qaliinka ee robotka waxaa ku shaqeeya nidaam 2 heer AI ah oo lagu tababaray 7 saacadood oo muuqaal ah oo ka kooban 1 eber oo dhaqdhaqaaq ah. Sidee buu robotka AI u sameeyey hawlgalka? Qaliinka takhtarka qaliinka ee robotka waxaa ku shaqaynayay nidaam 2 heer AI ah oo la tababaray 17 saacadood. Shaqadii adkayd ayaa loo qaybiyey 2 lakab. Iyadoo kii ugu horeeyey uu daawado muuqaalka fiidiyowga oo abuuray tilmaamo luqadeed, kan labaad wuxuu u rogay tilmaam kasta dhaqdhaqaaqyada qalabka 3 geesoodka ah si hawlgallada loo dhammeeyo. Robotku wuxuu gaadhay 100% guul hawl kasta oo kaliya si loo hubiyo in waxqabadkiisu aanu ahayn mid qalafsan. Wuxuu sameeyey isla qaliin 7 jeer oo kale ah. Mar kasta oo leh guul dhammaystiran. Robots AI ma beddeli doonaan dhakhaatiirta aadanaha? Hagaag, AI lafteedu miyaanay ahayn abuur aadanaha? Si la mid ah bini'aadamka, waxay u muuqataa in AI ay sidoo kale khaladaadka samayso. Tijaabada waxaa hogaaminayay koox cilmi baarayaal ah oo ka socda jaamacadda Johns Hopkins ee Baltimore. Tani waxay naga dhigtay inaan eegno waxa jiilka soo socda ee hababka robotic ah ee caawin kara bukaanada iyo dhakhaatiirta qaliinka, ayuu yiri Axel Krieger oo ka socda Johns Hopkins. Si kastaba ha ahaatee, bini'aadamku uma baahna inay werweraan wakhti kasta sida ugu dhaqsaha badan. Botku waa inuu issaxo dhowr jeer. Waxaa jiray xaalado badan oo ay ahayd in la issaxo, laakiin tani waxay ahayd mid si buuxda u madax bannaan, Krieger ayaa sharaxay. Waxay si sax ah u aqoonsan doontaa qaladkii hore kadibna ishagaajin lahaa. Intaa waxaa dheer, botku wuxuu sidoo kale ku qasbanaaday inuu weydiiyo bini'aadamka inay beddelaan mid ka mid ah qalabkeeda qaliinka, taasoo la macno ah qaliinku ma ahayn mid toos ah. Hadda, sida uu qabo Krieger, tallaabada xigta waxay noqon doontaa in loo ogolaado in robotku si iskiis ah ugu shaqeeyo xayawaanka nool halkaas oo nolosha iyo neefsashadu ay adkeyn karaan waxyaabaha